marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda dalka Qatar. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Doha. Ku soo dhaw barnaamijka. Waan dhawahay waa maadsan tahay Ridwan. Waxaa la socotaa in khilaafaadkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada weli uu taagan yahay hawlo fara badan ayaa hor yaalla dalka marka laga hadlayo 2 sano ee soo socota ee dawladda u dhiman. Bal haddii aad si hoose u eegto khilaafkan weli taagan maxaa lagu sameyn karaa muxuu salka ku hayaa? Marka hore waan salaamayaa dhageystayaasha iyo adigaba. Marka xiga khilaafkan 3 saldhig waaweyn ayuu leeyahay. Midda koowaad waxa waaye dastuurka dalka hadda u yaala inta qoran waa qabyo, inta qoran laftirkeedana jahawareerka sida ay qolo walba ay u fasiranayso jahawareerka ka dhalanaya ayaa wuxuu ka badan yahay waxa ay xalinayso. marka waa marka nin qof walba sidoo doono wuxuu u akhrisanayo ayaa meesha yaala oo kala saari karin. marka labaad nidaamkan federaalka ee hadda dalku waa qaatay la leeyahay iyo sida uu waaqica qabaliga ee Soomaalida ah ee aadka u qaybsan uga shaqeyn karo ayadana waa saldhig kale. midda saddexaadna waxa waaye siyaasiyiinta waxa gacanta ku haya oo kala aamin baxay oo runtii qof walba uu si asaga u gaaro danihiisa oo wax u macnaysanayo. saddexdaas saldhig ayaa waxa la dhihi karaa waxan ayay riixayaan. marka saddexdaas marka la eego waxyaabihii hore u dhacana la eego soo lama oran karo waxaa loo baahan yahay in cashir laga barto khilaafaadyadii hore u soo jiri jiray dhinaca dastuurka haddii la eego laftirkiisa wax walba laguma qori karo laakiin in siyaasad ahaan la isfahmo oo la isku soo dhawaado soo ma muuqata inay tahay waxa kaliya ee hore loogu socon karo. horta marka hore wuxuu guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira ma muuqato weli inay ka heshiiyeen sida state-ka Soomaalidu ama dawladnimada Soomaalidu sida ay u ekaanayso iyo dhaxdeeda sida ay ugu ciyaari karaan siyaasadda. weli arrinkaas taga ama soo gabagaboobin. dastuur kasta oo qurux badan oo la qorana haddaan lagu dhaqmin oo dhaqan sharciga in la ilaaliyo ah uusan meesha ka jirin waxba ma soo tarayo wax warqada ku qoran buu noqonayaa. marka sida muuqata hadda waa la kala marooqsanaya oo qof walba wixii uu qaatoon looga daba tagin ayuu leeyahay. marka wax hadda laga bartay oo aan ahayn inaan dagaalka lagu badegdegin anigu hadda ma arko. hadda sida muuqata inkastoo la iska khilaafsan haddana dadku dagaal kuma degdegayaan. waxaan isleeyahay shacabkii awal beenta loo sheegi jiro la kici jiray hadda maba la kicin karaba. laakiin siyaasiyiinta Soomaalidu weli ma aysan gaarin meeshii laga rabay dawladnimo in lagu wado oo la isugu dul qaato oo lagu doodo oo ilaa hadda meeshaas ma gaarsiisana arrinta. haddii marka weli meesha loo baahan yahay hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiintu inay gaaraan wax badan ay ka dhiman yihiin sida hadalkaaga ka muuqata wada shaqayn la'aantana ay sii socoto muddada kooban ee dawladda u hartay taas macnaheeda maxay noqon kartaa? soo ma aha in doorashana aan la tegi doonin? soo ma aha macnaheeda in arrimaha amniga iyo dhibaatooyinka hadda taagan inay sidooda iska sii ahaanayaan? dhowr arrimood baa ka dhalan karta markii khilaafka noocan oo kala mar kasta oo khilaafku dhacana waa ka dhalan jireen. marka koowaad waqtiyaa luma oo waxaana hadda mar kasta oo khilaaf dhaco dee horey looma soconaaye meeshii la joogay unbaa gadaal laga aadayaa. marka waqtigaas dhumaaya waa number 1. midda labaad waxaa kaloo imanaysa maadaama khilaafkii uu keenayo iscolaadin iyo yaan laga adkaanin waxaa laga mashquulayaa waxyaalihii kale ee muhiimka ahaa ee in wax laga qabta ay ahayd ama ammaan ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama wax kale ha noqotee tii ayaa laga mashquulayaa. iyadana waa mid labaad. midda saddexaad waxaa dhalanaysa markii la isku mashquulo oo nimanka siyaasiyiinta ah isku mashquulaan oo awoodo shisheeye la isu kaashado waxaa dhalanaysa dhaawac kii hore ka fog oo ka culusa ka dhalanaya. marka runtii intiina hadda waa noo muuqdaan oo hadda waxaa meesha yaalla waxa wax sahlan ama si sahlan yani la iskaga fududaysan kara ma aha. shalay haddii madaxweyne iyo prime minister isqaban jireen ama ay isqaban jireen baarlamaan iyo madaxweyne waxaan ayadana mar walba ka dhib yarayn oo isqaban jiray maamul goboleedyo iyo dawlad dhexe. marka wixii in la xeeriyana ama hadda yani capacity ama awoodii lagu controli lahaa oo waxaan inta looga wada hadlo lagu dhamay lahaana hadda meesha kama muuqato. marka saameynteedu
waxa waaye saameyn ballaaran waayo oo dhinac kasta oo nolosha aad taabanayso. waayahay dawladda hadda jirta marka la eego waxaad moodaa in khilaafaad dhexdeeda ah ilaa xad ay ka badbaaday oo sidii hore loo arki jiray madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta iyo mooshinno fara badan oo baarlamanka hadda ma muuqdaan. marka haddii dhinacaas laga eego maamul goboleedyada maadaama doorashooyin ay kusoo fool leeyihiin soo iyaga eedda lama saari karo oo looma baahna inay dawladda fursad siiyaan 2 sano ee u dhiman fahmaana waxyaabaha dastuurku awoodda u siinayo inay dabcan ay caddahay tusaale ahaan dawladda dhexe inay uga dambeeyaan inta badan arrimaha dibadda marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo sidii horey loogu wadi lahaa diweegista dastuurka arrimaha amniga in wax laga qabto sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa. wallahi horta oo in laga badbaaday inaan laga badbaadin waa su-aal dood ka taagan tahay oo hadda de guddoomiyihii baarlamaanka ayaa iyo qayb baarlamaanka kamida oo dhana iyo prime ministerka iyo madaxweyne oo dhana ayaa diriray wakti badanaana ku lumay oo bilo ah hadda laftirkeedana sidii looga soo noqday ma muuqata in si sahla looga kabtay oo de baarlamaankii siduu u kala dhantaalan yahay xaqiiqatan. marka weli horta waa jiraan dhibku waa jiraa oo siyaasiga ah kii unbaa hadda waxaa soo raaca